السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago halaatuska ama kaltirsiga ama waxa afka qalaad lagu yiraaho kalendarka af Soomaaliga 2025 runtii waxayd mar hore inaan soo saaro laakiin waqtiga ayaa ii diiday marka halatuskan ama kaltirsigan ama kalendarkan isaga ah wuxuu ku qoran yahay bilaha iyo maalmahaba af Soomaali ay ku qoran yahay waxaan garab socdo oo aan garab dhigay bilaha kale ee milaadiga ah ayaan garab dhigay marka faraqa u dhaxeeyo labada kalendar kan milaadiga ah ama Gregorianka la yiraaho iyo kan Soomaaliga ah aniga aan runtii aan isku daba riday waxa waaye annaga bilaha Soomaaliga oo adeegsano waa 30 casho ay ku dhamaadaan laakiin bilaha kale milaadiga qaar waxay ku dhamaadaan 31 32 ku dhamaataa halna waxay ku dhamaataa 28 iyo leave of the year oo 29 ah oo February bisha labaad ah iyo 4 oo ku dhamaato 30 marka halkaas ayaa waxa ka soo baxaysa marka farq yar oo u dhaxeeyo bilaha laakiinse halatuskan ama kalendarkan isaga wuxuu ku salaysan yahay 30 biri ee bilaha af Soomaaliga waxaan jeclahay runtii qof walba inuu ka heli doono runtii waxa waaye muhiimaddu waxay tahay in Soomaali adeegsato halatus ama kaltirsi ama kalendar ayada ay leedahay oo afkooda uu ku qoran yahay jiilasha soo socdana mustaqbalkana la baro ujeedadu intaas waaye halkan aad u jeedaan waa wejiga halatuska ama kaltirsiga wejigiisa waaye waxaan ku bilaabay afkaaga waa dhaqankaada afkaaga wuxuu u taagan yahay dhaqanka halatuska afka hooyo 2025 Somali calendar 2025 waxaan soo qaatay astaamo fara badan oo runtii dhaqanka Soomaaliyeed aad looga yaqaan caan ku ah runtii astaan Soomaalida u taagan tahay geel oo dhigay wiil yar oo geelas dhan hor joogo oo ilaalinayo oo macnaha asiga mas'uul uu ka yahay geelas isaga ah waxaa yidhi wiil yaro geel jiro gaajadu karaynin waa waxaa dhulkeenna u gaareen ee nagula gartaa tusaale kale waxaan usoo qaatay dhinacii beeraha saa ujeediin beeruhu runtii soo saarka ugu weyn ee Soomaaliya waa runtii markii la yiraaho beeraha marka waxaan yidhi inaan beer falanno aan ku baahi baxnee nimaan beer falan baryo kama baxo marka intaas waxay ahayd tusaalihii wejiga hore ee halatuskayga ama kalendarkayga bogga labaad waxaan ku xusay bilihii iyo maalmihii af Soomaaliga oo noogu socon doono mise aan adeegsan doono halatuska aan ku adeegsan doono bilaha xilliyada iyo maalmaha af Soomaaliga saas ayaa u kala saaray marka waxaan u qaybiyey 4 xilli ayaa u qaybiyey oo ah jiilaal oo af Ingiriis ku noqonayo eragaas winter waxaan u qaybiyey 3 bilood oo ah todob af qalaad saas waa ku taagan hays iyo diraac saddexdaasi waa jiilaalkii gugi waxay noqotay sermaweydo cawl iyo guyare xagaagii wuxuu noqday xagaa cadde xagaa madoobe iyo karan deertii waxay noqotay 3 bilood dambarsame deer xalaalood iyo deyr guban marka 12 bilood oo iyo bilihii af Soomaali ah iyo 4 xilli loo qaybiyey halka ay idinka muuqataa maalmihi ku soo haray soo roge maalinta sabtiga ah koobin waa axaddi laamin waa isniintii
lama toog waa talaadadii, koodaar waa arbacadii, hakis waa khamiis, hakis bilna waa jimcihii. marka hadda waxaan sheegayaa maalmaha af carabiga adeegsano waaye, laakiin maalmaha af soomaaliga ah ee dhabta ah oo runtii dad badan ay ka hadleen sida abwaan jiheeye oo ka hadlay waxa waaye marka maalmaha af soomaaliga kuwaasa. waxaa kaloo halkan noo soo weheliyo oo runtii meesha ku jiro maalmihii af soomaaliga iyo magacyaaladoodii. halkan waa wejiga ugu horeyso runtii waxaan ku xusay magaaladeydii beledweyne. waxaa la yidhi marka todob waa bisha ugu horeyso, marka todob maadaama ay u dhexeeyaan annaga aan xisaabinayna bilahayna 30 casho, laakiin bilaha kaloo milaadiga ah ee January iyo February ah qaarna ay ku dhamaadaan 30, qaarna ay ku dhamaadaan 31, qaarna ay ku dhamaadaan 28 ama 29. waxaa u dhexeeya faraq ama waxaa u dhexeeyo gaab yar ayaa u dhexeeyo. tusaale halkan marka ay bishan todob ee soomaalida ay kow tahay, bisha 12aad ee December ee milaadiga waxay maraysaa 27. todob markay tahay 2 December waa 23. markay gaarto December ay 31 tahay, todob waa 5. sanadka cusub ee milaadiga markuu bilowdo oo January 1 ay tahay, bisha soomaaliga ee todob waxay maraysaa 6. marka waxaa u dhexeeyo 5 biri ayaa u dhexeysa oo ah macnaha 5 isku geegeyntii markasta way sii kordhaysaa. faraqaasi waa habka u samaysan tahay misalan marka la isbarbar dhigo hijriyada iyo milaadiga marka la isbarbar dhigo sida u samaysan tahay kaleeto waaye. marka runtii waxaan filayaa insha Allah waxaan bilaabi doonaa inaan bilbil u soo qaato oo hal bil u soo geliyo iyo habkay u shaqaynayso. marka bil walin waxaan siiyey sawirro runtii muuqaal aad u wanaagsan leh oo runtii aan ugu talagalay xataa jiilka cusub inay ka faa'iidaystaan ay bartaan. sawirkan waa ujeedaa waa webigii beledweyne oo buuxsamay, baartii geed baaxad weyn oo dhir iyo lixaad oo la yidhaaha baar. marka baartii waa ujeedaa webigii oo runtii barwaaqo ah. halkan waa urur dhalinyaro ah oo dhalinyarada isxilqaan ee ka dhisan magaalada beledweyne. waa dhalinyaro is aruursatay oo magaalada nadaafadeeda iyo jidadkaas inay hagaajiyaan u istaagay waaye. marka ayaga ayaan ku sharfay inaan ku xuso. waxaan u imaan doonaa hal ayaan usoo qaadan doonaa bil kastaba, waan idinla wadaagi doonaa. waa isaas farxooda leh, kulan dambe oo xiiso leh. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. la wadaag asxaabtaada, taas ayaan iloobay. la wadaag asxaabtaada si ay u faafto una hirgasho kalendarkan isaga ama salaaduskan soomaaliga ah oo qof kasta uga faa'iidaysto. kulan dambe oo xiiso leh.